الرحيم waxaan shalay ka soo noqday safar aniga iyo wafdi kale oo ila socday aan ku tagnay dalka Imaaraadka Carabta khaasatan magaalada Dubai oo aan kaga qayb galay shir ballaaran oo wadamo ilaa 20 ka badan ay ka soo qayb galeen wasiiradooda xagga dhaqaaluhu oo Afrika iyo Carabta walaha iyo meelo kaleba oo uu shir gudoominayay wasiirka dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka Carabta shirkaasi waxaa noo soo gashay inaanu la wadaagno ka qaybgalayaasha dalalka wasiirada ka soo qayb galay shirka inaan la wadaagno arrimaha khayraadka dabiiciga ee Soomaaliland leedahay haday kalluun tahay haday tahay macaadinta kale ee dhulka ku jirta iyo batroolba haday tahay xagga beeraha haday tahay xagga dadka skillka ee aqoonta leh ee dalkan leeyahay iyo guud ahaan arrimaha dalkan dhaqaalihiisa iyo maalgashigiisa kor u qaadi kara waxaa halka shirka nooga soo baxay in wadamo fara badan iyo sharaa'ig fara badan ay jiraan oo aad u daneynaya in ay dalkan Soomaaliland ay maalgashadaan taasina waxay noo suuro gashay inaan markaa ka hadalno siyaasadda maalgashiga ee Soomaaliland ku wajahan soo jiidanaysa soo dhaweynaysa in maalgashi fara badan dalkan la geliyo intii aan joogay dalka Imaaraadka waxa kale oo suuro gashay inaan kulan khaas ah aan la yeesho aniga iyo wafdigaygiiba wasiirka dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka ninka la yiraahdo Mr. Sultan Mansouri oo aan ka wada hadalno cilaaqaadka xagga ganacsiga ee labada dal wada hadalkaygina waxa nuxurkiisu ahaa ka soo baxay laba qodobka hore ah Soomaaliland oo ka dalbatay wasiirka in shir weyn oo ganacsiga iyo maalgashiga ku saabsan aanu ku sameeyno dalka Imaaraadka Carabta dawladdiisa iyo wasaaraddiisuna ay gacan naga siiso oo waqtiga ku habboon aan isla eegno iyo meesha ku habboon ee lagu qaban karo oo aan ku soo bandhigi doono khayraadka dalka leeyahay iyo sida aan maalgashi ugu jeelanahay uguna diyaarnahay dawladda Imaaraadka iyo duulka kale ay halkan galiyaan arrintaasi waan isla afgaranay wasiirka waqtigeedii iyo arrimeedii farsamada ayaanu iminka ka shaqeynaa arrinka kale ee ka soo baxay wada hadalkayga waxa weeye in ay Soomaaliland aan ku yeelano halka xafiis xagga ganacsiga horumariya iyo maalgashiga oo Soomaaliland leedahay oo aan ku yeelano dalka Imaaraadka si taas markaa ay u dhiirigeliso oo u dardargeliso cilaaqaad xagga ganacsiga iyo maalgashiga oo labada geesood sharaa'igooda iyo kambariyadooda iyo bacmistarkooda waa dhexmara aad baan ugu faraxsanahay labada qodob inay noqdeen qodobo aan isku fikrad ka noqonay labada geesoodna ay soo dhaweeyeen fulinteeda iyo farsameynteeda iyo hirgelinteeduna ay tahay arrin wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda kale dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka ay ka hawlgalayaan hadii Allah aad iyo aad baad mahadsantahay intaas aan doonayna